kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheena qiimaha badan oo ku soo dhawaada bartayna ku leenahay YouTube-ka Xidigaha Sports ku soo dhawaada barnaamijkeena taariikh kooban oo kaga hadlayno xidiga dhawaangalka ah ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee Jadon Sancho. Jadon Sancho wuxuu dhashay 25 bishii Maarso 2000. waa laacib sports xirfadle ah kana soo jeeda England una ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United oo soo iibsatay xidigan mid ka mid ah xidigaha ugu da'yar ee rajada wanaagsan ku leh kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Sancho wuxuu diiradda u saarnaa kooxo dhowr ah ka ciyaara qaaradda Yurub. tani waa natiijada ka dhalatay firfircoonidiisa dhalinyaranimo oo ay weelisay awoodiisa kubadda cagta ee la jecel yahay. waxaan dib u eegaynaa koritaanka xidigan da'da yar ee kooxda kubadda cagta Manchester United ee 77 milyan kaga soo iibsatay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Jadon Sancho xaqiiqooyinkiisa nololeed, caruurnimadiisa, nolosha shakhsiyadeed iyo qiimaha saafiga ah wiilkan da'da yar ee lagu naanayso gantaalka wuxuu si dhaqso leh uga mid noqonayaa ciyaartooy ay taageerayaal dhowr ah rumaysan yihiin inay la wareegi doonaan mas'uuliyadda culus ee hogaaminayaasha kooxaha kubadda cagta. Jadon Sancho waa mid ka mid ah astaamaha cajiibka ah isaga ka dhigaya mid ka mid ah xidigaha gaarka ah ee hibada u leh kubadda cagta qarniga 21aad. Jadon Sancho waxaa lagu naanaysaa The Rock ama The Assistance King ama boqorka caawinaadda, taasi oo loola jeedo inuu yahay xidig ku takhasusay caawinaadda goolasha ay dhaliyaan xidigaha ay isku kooxda yihiin. wuxuu dhashay 25 Maarch 2000, da'diisu waa 21 jir. waxa uu ku dhashay magaalada Camberwell ee dalka England. dhererkiisa waxaa lagu qiyaasaa 5 feet iyo 11 inji oo la mid ah 1.8 mitir. culeyskiisa waa 76 kilogaram. aabihiis waxaa lagu magacaabaa Sancho. waa xidig ciyaara kubadda cagta. wuxuu ka ciyaaraa booska garabka dhexe ee weerarka. kooxda uu hadda ku sugan yahay waa kooxda kubadda cagta Manchester United, isagoo dhawaan uga soo biiray kooxda FC Borussia Dortmund ee ka dhisan dalka Jarmalka. waalidiinta xidiga dhawaangalka ee kooxda kubadda cagta Manchester United Jadon Sancho waxay ka soo jeedaan waddanka Taariikhda, waxayna u haajireen England si ay caruurtooda u helaan nolol ka duwan nolosha ay ku haysteen qaaradda Afrika. markii uu yaraa xidiga xulka kubadda cagta England Jadon Sancho wuxuu taageero u ahaa kooxda kubadda cagta Chelsea. Jadon Sancho waxa uu muujiyay xiisaha weyn ee uu u qabo inuu ciyaaro kubadda cagta maalmaha ka mid ah, wuxuuna ka soo bilaabay dugsigiisii hoose ee London. Jadon wuxuu ku lug yeeshay kooxdii kubadda cagta ee dugsigiisa, wuxuuna ku soo baxay xidig cajiib ah. wuxuu horumar ka sameeyay ciyaarista uu la ciyaarayo saaxiibihiis isagoo kula ciyaarayay jidadka waaweyn ee magaalada London. Jadon iyo saaxiibadiisa kale ah Reece Nelson iyo Carlo Buffedo ayaa waxaa ku qancay bandhigooda cajiibka ah. macallin koox kubadda cagta ka ciyaarta London hogaamiye ee Holmes Lewis kaasoo ogaaday xirfadda ku jirto xidigahani, sidaasina oo go'aan ku qaatay inuu kooxdiisa ku darsado xidigahan da'da yar. Holmes Lewis ayaa tababar u ahaa Jadon Sancho iyo saaxiibadiis, wuxuuna u horseeday inay ku guuleystaan tartankii markaasi ahaa xidigahooda da'doodu ka yaryihiin 11 jirada. isla markii wuxuu soo jiitay kooxo badan oo ka dhisan cariga London ay ka mid yihiin kooxaha Arsenal iyo Chelsea. waxay bilaabeen inay xiise u muujiyaan Jadon, laakiin wuxuu go'aansaday inuu sii joogo kooxdiisa Watford. wuxuu bilaabay inuu si dhow u daawado muuqaalada xidigaha kala ah Neymar iyo Ronaldinho, taasoo u horseeday inuu noqdo madadaalo kubadda cagta oo wanaagsan. awoodiisa madadaalo ee kubadda cagta ayaa ka mid ahayd dhowr astaamood oo soo jiidatay kooxaha kubadda cagta ee qaaradweynta Yurub. bishii Maarso ee sanadii 2015, Jadon Sancho oo da'diisu ahayd 12 jir ayaa waxa uu ku biiray kooxda kubadda cagta Manchester City, isagoo ugu biiray lacag dhan 66,000 oo pound. Jadon Sancho wuxuu ku sii socday qaab ciyaareed wanaagsan, kooxduna rajo weyn ayay ka qabtay isaga. tallaabadan uu xidiga uga dhaqaaqay kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa ka yaabisay tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola, kaasoo horeyba qandaraas uu sii diyaariyay Sancho. bishii August ee sanadii 2017, Jadon Sancho ayaa dhameystiray qandaraaskiisa ugu biiray kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund,
Dortmund ayaa ka bixisay xidigan lacag dhan ilaa 8 milyan. Xidiga da'da yar ee Jadon Sancho ayaa lagu daray kooxda koowaad ee Borussia Dortmund bishii Oktoobar sanadii 2017. Wuxuu u ciyaaray kooxda waaweynka wuxuuna noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Ingiriis ah ee u ciyaaray kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund. Wuxuuna dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Borussia Dortmund bishii Abriil ee sanadii 2018. Xagaagii 2018 wuxuu kooxdiisa kubadda cagta Borussia Dortmund la safray cariga iyo dalka Mareykanka si ay isugu diyaariyaan xilli ciyaareedkooda cusub. wuxuuna la ciyaaray kooxdiisii hore ee Manchester City. Jadon ayaa si fiican u ciyaaray ciyaartaasi wuxuuna ka qayb qaatay guushii hal iyo weerka ahayd ee kooxdiisa ka gaartay kooxda kubadda cagta Manchester City. Wuxuu sii waday inuu saxiixo heshiisyo fara badan oo kula sii joogayay kooxdiisa kubadda cagta Borussia Dortmund, taasoo ka dhigaysa inuu sii joogo kooxdiisa kubadda cagta Borussia Dortmund ilaa iyo 2021 markii uu 2 gool dhaliyay ciyaar ka tirsan Bundesliga, taasoo ka dhigtay inuu noqdo xidigii ugu da'da yaray ee 2 gool u dhaliyay tartanka Bundesliga. Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund isagoo dhashay Jadon Sancho sanadii 2000. wuxuu kaloo Jadon Sancho noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee dhashay sanadii 2000 kaasoo gool ka dhaliyay tartanka faca weyn ee The Champions League. Jadon Sancho wuxuu uu sii waday qaab ciyaareedkiisii la yaabka lahaa taasoo ku kasbaday magacan caanka ah ee loogu yaqaan dunida ee The Assistance King, boqorka caawimaada, kaasoo ka noqday horyaalka Bundesliga. Dhammaadkii xilli ciyaareedkii 2018-2019 wuxuu ka mid ahaa kooxdii ugu fiicneed ee xilli ciyaareedkaas horyaalka Bundesliga. Jadon Sancho ayaa kooxdiisii Borussia Dortmund kula guuleystay tartanka Super Cup. wuxuu sidoo kale heshiis cusub u saxiixay Dortmund sanadii 2019. Jadon Sancho ayaa waxa uu u ciyaaray kooxda dhalinyarada ah ee xulkiisa England, wuxuuna ku guuleystay ciyaaryahanka tartankii koobka UEFA European Under-17 Championship. wuxuuna ka qayb qaatay heerarka guruubyada FIFA Under-17 World Cup sanadii 2017. waxaana loo dilacsiiyay kooxda waaweynka ee xulka kubadda cagta England bishii Oktoobar 2018. Xidiga da'da yar ee Jadon Sancho ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Manchester United ee 1 bisha July ee 2021. Sancho ayaa la filayaa inuu u ciyaaro kooxda kubadda cagta Manchester United xilli ciyaareedka soo socda isagoo wajihi doona kooxdiisii hore ee Manchester City. waxaan halkaasi ku soo koobaynaa taariikhda gaaban ee aan kaga haynay xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United ee Jadon Sancho. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan subscribe saar channelkan si aan kuu soo gudbino barnaamijyo kale oo xiiso geliya insha Allah.